wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maqribnimadii caawa waxay ka soo degeen gegida diyuuradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Ujeedada socdaalka wafdiga madaxweynaha ayaa waxay la xiriirtaa sidii maalinta berita ay uga qayb gali lahaayeen caleemasaarka madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. wafdiga madaxweynaha waxaa qayb ka ahaa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka saxaafadda ee madaxtooyada Soomaaliya Mudane Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa warbaahinta uga warbixiyay ujeedada socdaalka wafdiga madaxweyne Farmaajo uu caawa ku yimid magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya. wafdiga madaxweynaha waxaa gegida Jomo Kenyatta International Airport ku soo dhaweeyay siyahayaha wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Marwa Amina Maxamed. ujeedada safarkan ee madaxweynuhu ku yimid dalka Kenya waxay tahay sidii uga qayb gali lahaa caleemasaarka madaxweyne Uhuru Kenyatta oo markii labaad loo doortay inuu teeram labaad hogaamiyo Kenya. Kenya iyo Soomaaliya sidaad ogtiin waxaa ka dhaxay xiriir qoto dheer. يعني dabaaldegan iyo caleemasaarka madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hambaliyada uu madaxweynaha u soo diray waxaan sidoo kale garawsanay in dawladda Kenya naga mudan tahay inaan xilligan garab istaagno kala soo qayb galno. hogaamiyaal badan oo gobolka iyo qaaradda Afrika ayaa waxay ku soo qulqulayaan magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya si ay uga qayb galaan caleemasaarka loo sameeyo maalinta berita madaxweynaha mar kale la doortay ee wadanka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. عمر عبد حسن عمر عاقل SNTV garoonka diyuuradaha Jomo Kenyatta magaalada Nairobi.